السلام عليكم يا students رالي نقضي انتي هوري كجرتي imika live ka mar laad baan soo galnay khadkeena geero uslaaday marka hadana dib baan soo raagajinay ma sha Allah horta meel fiican bay noo mareysay dib baan soo bilaabi doonaa marka ardayda imika soo galayso aan soo dhaweynaya qaybteena maanta waxaan wadnay something called colloquial English marka waxay ahayd luqadda ku hadalka dadka native inta badan isticmaalaan marka hadallada qaar ee ardayda fahmi waayaan baa ku jira xagga marka waxaan jeclahay insha Allah ardayda imika naga baxday inay soo noqoto aad baan idin soo dhaweynaynaa kuwa imika soo galayna insha Allah soo qoray idinku magaaladiina share-kana fadlan inoo taabta marka dib baan soo bilaabi doonaa share-kana inoo kordhiyay ardayda oo kale wada arkaan intii hore noogu jirtay imika intii ka baxdayba marka let's begin bismillah soo marka hore waxaan u qaadanay wanna iyo wanna be sama ardayda hore soo qortay marka 10aantii hore aan u qaadanay maalintii hore waxa ku qoran part 1 wanaan maalintii hore qaadanay part 2 na waxayd qaybtan maanta qaadan doona insha Allah marka we had part 1 colloquial English waxaan qaadanay wanna gotta gonna kinda iyo gimme okay intaan wada qaadanay marka imika waxaan qaadan doonaa laba qaar isku dhow aan idin soo saaray kuwaasan insha Allah maanta qaadan doonaa marka waxaan rabaa inaad sidii 10kii kan koreeyo kale aad jumlada aad soo qortaan sentence-ka soo dhameystiran aad soo qortaan aadna waan idin salaamay ma sha Allah Hamza Wolfsburg soo dhawow Hamza waan idin arkayaa fadlan insha Allah ardayda soo galaysa magaalada inoo qara share-kana inoo taabto insha Allah shay arday fara badan ay uga faa'iideystaan marka we have wanna want to and waxaan rabaa anigu okay I want to play football I want to go home I want to sleep marka I want to marka want to ayaa la soo koobay dadka native waxay dhahaan wanna okay wanna ka ku xiga wax weeyaan wanna be marka horaan ardaydii hore u sheegay marka jumladaad ka soo qori doontaan insha Allah wanna be marka wuxuu ahaa I want to be marka pronoun-ka mar walba bedeli kartaa ka jeceshahay you want to be she wanna be he wanna be wada oran kartaa laakiin I want to be weeyaan waxaan rabaa inaan noqdo marka waxaan rabaa inaan noqdo kan ugu daha bas xaga iska dah I want to be marka I want to be marka la leeyahay waxa weeyaan I wanna be marka tusaale kale I wanna be a doctor I wanna be an engineer okay jumladaas ku soo qora idinku isku dayna jumlad ka sameeysan ama aad word ka sameeysan ereygan wanna be ereyga ka sameeya word insha Allah wanna be okay aad baan idin wada salaamay ma sha Allah muqdisho soo dhawaada Cabdisalaam iyo Cabdi Fataax aad baan idin wada salaamaya Faadimo marka I wanna be an engineer very good Maxamed Xuseen si fiican baad inoo qortay I wanna be an engineer very good top I wanna be an engineer ma sha Allah ardayda soo galaysana aad baan idin salaamay isku day inaad jumladaha nala qaadataan aad soo qortaan ujeeda weerka ama sentence-ka kuwan aan isticmaalana marka waxa weeyaan waa colloquial native English ka ku xiga marka gotta iyo aura marka waxaad arkaysaan labada ta kale tt looguma dhawaaqay waxa loogu dhawaaqay maxay almost like Soomaaligeena dhaadoo kale dhar marka la leeyahay dharka oo kale clothes daadaas ayay ku dhawday ay gotta marka aura iyo gotta marka gotta waxa laga soo koobay waxa weeyaan got to labada erey ee got iyo to marka la isku daro sida native-ka ku dhawaaqan waxay ku dhawaaqan gotta way isku daraan marka gotta I gotta go waxaan u baahnaa inaan tago I gotta go to the market inankii Bashiir marka inoo qoray ardaygii ma sha Allah ku dadaalay waxaan jeclahay inuu ku soo galay I gotta go okay and then wax weeyaan aura maxaa weeyaan out of ayaa la isku soo daray out of ayaa noqonaysa aura marka labada ta baa lagu dhawaaqaya I gotta go to the market I gotta go to the doctor or I gotta finish my essay I gotta finish my homework aura marka lagu leeyahay wax weeyaan out of ka baxsan sama out of macnaheedu wax weeyaan get out of here okay or marka la leeyahay meesha waa halis ama waa khatar get out of here qof markuu ka yariyay meesha ma isqabsateen get out of here aura okay
soo qora insha Allah weerarka waan idin akhrin doonaa Faaduma masha Allah I want to be reading okay marka waxaad qoraysaa Faaduma I want to be waxa rabaa inaan noqdo marka sheega qofka ama waxaad noqonaysid baad qoraysaa Abdisalaan I want to be a teacher very good aada ka maqan I want to be a general director very good Ahmed Abbas I want to be a captain Ali Abdullahi Sifian I want to be a super rich okay Adnan very good aada ka saar waayo I want to be super rich I gotta go to the beach very good Mohammed Hussein I gotta go to the beach Hamza Ali Guray we gotta go to school marka go down ku dar we gotta go to marka go the to dum bad swidaarinaysa we gotta go to school very good Hamza I gotta go Abdi Qani Sifian I gotta go to the gym very good mashallah read English Fatima I gotta read English there I gotta read English very good marka awrana wax weeyaan wax meel ka baxsan ka bax ama soo ka tag out of okay he's out of here okay but also kano kala waxa jira kelmadda wanna be aan duwiro noqdo wanna be waxa jirta iyadoo si kala loo isticmaalo waxaad rabtaa maaha laakiin la oranayo he is a wannabe she is a wannabe waa qof siyeeliyeel ama waxaan ahayn isku day inuu iska dhigo dadka qaar baa isku day aragtaan oo kale inuu lacag haysto kale gaari qaali uu iska soo kareysanaya dharan caadi buu soo xiranaya laakiin se waxa weyn nin aan lacag haysan waa faqiir laakiin inta ay tusta ama showga ayaa la oranayaa he's a wannabe you are a wannabe she is a wannabe waa qof iska dhigdhigaya waxaan ahayn okay saasna loo isticmaalaa masha Allah soo dhawaada ardayda oo dhan inoo soo qor insha Allah jumlada I want to be a teacher like you Rashka Rashid masha Allah very good Abdul Hakim I want to be a doctor very good I want to be a pilot I got to go to the garden I want to be an interpreter antum haka ilowina inta badan ardayda waxa ku yara qaldan these two words waa article a iyo an labada ka ilowina I want to be a doctor marka doctor wuxuu ka bilaamayaa d sama wixii ka bilaamayo oo dhan consonants-ka ama maxaa la dhahaa shibanayaal af Soomaaligeena laakiinse an hadduu engineer ka bilaamayo e waxaad isticmaalaysaa an engineer articleska wixii foul ka kacaya ama shaqal okay ardayda fadlan inta cusub ay soo galayso inala qaata insha Allah soo dhaweynayna I want to be rich I gotta go to the market very good I want to be a pilot si fiican masha Allah la qabsateen ka ku xigaanu sii wadna marka gonna you don't know gonna okay marka gotta wuxuu ka duwan yahay got to wax imika ku taagan ay ku sugaya aad u baahan inaad qabatid gonna wax weeyaan going to okay going you to marka waa tigid okay I'm gonna or you're gonna wax la qabanayo marka kan waa degdeg kana maaha degdeg okay I'm gonna go to Hargeysa next week I'm gonna go to Mogadishu next month I'm gonna okay waxaan qaban doono you're gonna he's gonna she's gonna marka pronoun-ka waad bedeli kartaa like so gonna waa going you to isku daray going you to oo isku daray insha Allah okay Abdullah Mbuda I want to be a singer si fiican I want to be drinking water I want to drink water I want to drink water ku dhay marka Munir marka drinking waa continuous baad ka dhigtay marka wax imika taagan baad oraysaa I want to drink water marka present tense baad isticmaalaysaa continuous ka nagada okay Sumaya I want to be a doctor inshallah very good Badri Abdesan I want to learn how to speak just like Mahdi very good mashallah Badri Abdi Fatah I'm gonna go to the airport marka I am to ku dar I'm gonna go to the airport go dana ku dar gonna marka or waxa kaaga fiican I gotta go to the airport waa degdeg or I'm gonna go to the airport next week ama tomorrow ama next year ama the next hour waad oran kartaa okay very good mashallah I'm gonna go to London soon very good mashallah Badri si fiican Abdisalaan I'm gonna go to Mogadishu si fiican baad la qabsatay mashallah marka don't know kana qaadana marka ardayda soo galaysa fadlan share-ka inoo taabta insha Allah share-kana ku dheereeya si arday fara badan inoo soo gashay ka faa'iideysta casharaantan jumladahana weerarkana soo qora marka don't know wax weeyaan inta badan waxa loo isticmaalaa don't know ma ogi weyn ma garanayo I don't know marka don't know inta badan dadku ma dhahan when you say to them where is my pen or markuu qofku ku dhaho where is my mobile I don't know marka way boobsinayaan soo ma aragtid marka don't know you don't know inta badan labadaba lagu dhawaaqaa laakiin don't know ayaa ka saxsan I don't know
marka ma garanay weyn I don't know okay I don't know English I don't know English marka taadi baa meesha oo ka baxday I don't know English kaba ma aqaan okay I don't know English so this one kinda horaan soo qaadan soo ma kind of way marka kinda waxa weyn macnaheedu kind of marka waa nooc kamida okay I'm kind of happy marka I'm kind of angry I'm kinda angry I'm kinda tired marka nooc kamida okay that is my kind of car noocaas oo kale gaarigaas oo kale aan ka helaa anigu that's my kind of house gaariga noocaas ama gurigaas oo kale aan ka helaa that's my kind of girl marka my wife is my kind of girl sama xaaskayga waa gabadha noocan ka helaa oo kale kinda marka waa nooca kamida okay kinda kuwaana inoo soo qoray insha allah hadii eego I want to be a businessman Abdurrazzaq Mohammed mashallah very good I'm gonna go to the mosque very good Abdiftah Sisi I'm gonna go to the school I'm gonna go to school the school kaskada school creator kugu filan mashallah very good hoosan sura I'm gonna take the bus very good I'm going to this market hoosan sura mashallah jumlada badan baa inoo soo galaya inta aan akhrin karaan isku dayay inta badan waxa laga yaabaa inaan gaari karo I don't know I don't speak I don't know French marka Maxamed Ahmed speak kasar I don't know French I don't know French I don't know Arabic I don't know Chinese I don't know English okay I don't know how to speak Abdiftah very good si fiican baad soo qortay I don't know Arabic language Abdullah Hussein mashallah very good si fiican baad la qabsateen Hoda Abu Bakr I'm gonna go to the same where else I'm gonna go marka I'm gotta go I gotta go to somewhere else marka emta kasar I gotta go okay football is a kind of game very good mashallah this is kind of animal very good I don't know more English I don't know what he wants very good mashallah Abdullahi Hassan Abdiftah سبع مد صوت قرصان mashallah aad baan ugu hambaleenayaa Adnan I'm kind of hungry very good si fiican baad la qabsateen marka imika ku xigaan qaadana don't marka don't you weeyaan don't you marka don't you have a lesson marka maanad xiisad lahayn xiisad miyaanad lahayn don't you have a book qalan miyaanad a book maanad sidan don't you have a pen marka waxa la oranayaa don't you have a lesson don't you marka don't you marka ooda xoog lagu marwaa don't marka don't you have a book miyaanad sidan don't you have a pen don't you have a pen don't you have a lesson okay don't you have a husband don't you have a wife don't you have a job waxaasoo dhan baa la arkaya miyaanad lahayn waxaanad lahayn baad ku oranaysaa don't you okay I don't know how to speak English very good Abdisalaan I like this kind of car marka Usman Maxamed waxaad muradaa I like this kind of car I like this kind of car I like this kind of car ku qor I don't know English very good Hamza I don't know more Russian marka I don't know Russian buu ku dhahay Russian baa kugu filan I don't know who you are Kulit very good I don't know who you are very good mashallah don't you have a car very good Hamza don't you have a car gaari miyaanad lahayn don't you have a house don't you have a job intaasoo dhan baad qori kartaan very good mashallah okay Zainab why are we teaching slang because Zainab Hassan we're teaching slang because it's part of speaking and the students need to learn how to understand slang and how to use it okay very good I don't know English don't you have a lesson very good don't you have a pencil okay very good don't you have anything to drink very good I have my water to drink don't you have a doctor very good si fiican baad u fahamtay mashallah ka ku xigaan u qaadana markaa give me yo let me mashallah aad dad badan baa inoo soo galeen soo dhawaada inshallah jumlada inala qaata ardayda cusub oo dhan sharekan inoo taabto inshallah si arday fara badan oo aragta casharkan give me marka waxa weeyaan give iyo me la isku daray la oranayaa give me marka waa give me anigii si okay give me or give me your book give me your pen okay give me your phone give me your car okay marka give me waa anigii si okay give me marka v di baa laga saaray give me ayaa laga dhigay v e di baa laga soo dhex saaray waa la isku soo koobay give
give me marka kaana soo qoray insha Allah si fiican kana let me iyaduna waxa weeyaan let me weeyaan marka let me taadi baa laga saaray xagana fida laga saaray xagana waxa laga saaray td let me marka let me baa la oranayaa let me help you halkii la oran lahaa ayuu qof oranayaa let me help you let me do that for you okay let me go isida okay let me go ama let me go okay can you let me okay ma waxa la oranaysaa let me maaha kii let me my pen maaha waxa weeyaan can you give me my pen can you give me my pen or give me my pen okay give me that phone Abdullah very good give me a chance to win the game very good Hamda very good Adnan let me have your pen very good sasa saha let me have your pen that's all good give me your book marka Isa Abdi ayda ka saar Hamza Ali gure waxaad siraada give me your mirror marka let me maaha deep give me when waxa deep isi wa give me let me waxa aan ku qabto ida ama fasax let me waxa aan fasax qaadad marka inaad wax fasax qaadatid ama aad wax u ogolaa ama qofka inaad ogolaasho ka weydiisanaysid let me go and tago fasax let me help you and ku caawiyo qofkan ogolaashaad weydiisanaysid laakiin wax deep ama wax isi wax la isticmaalaya give me Guled Hassan, give me your dance, very good. Give me your girl, okay, very good. Give me those books, sir. Don't you have money? Mario, very good. Give me your book. Sah, Sufyan. Shuaib waxaad samayn kartaa dhib ma laha 10kan hadhow marka laga baxo dib u soo gali doonaa marka si toos ayaad u daawan kartaa hadhow ilaa bilow ilaa dhammaad hadhow Facebook soo gali doonaa marka waxba ka wareerin marka give me your let me okay give me your let me marka give me deep amasi let me and wax ku qabtaa ma fasax weeyaan ka soo qoray inshallah diyaar akhriyo give me my mobile very good halgama darwish sultan give me your book sah very good give me your book let me run and orodna give me your time to take happy time very good sah si fiican baad u taqaanaan ma sha Allah let me see the new one Fiqi Ahmed let me see the new one very good ka cusub aan arko can you give me a pen okay Hamza marka pen maaha B waa pen waa P okay Soomaalida inta badan labada xaraf bay isku qaladaa waxaan B iyo P okay marka this is not pen this is pen P that's all isticmaale very good Sumaya give me my pen please very good marka gom ka dhig halkaas Sumaya ooda ka bedel Bishar very good let me know you let me get to know you okay let me get to know you Sasalarnaya very good mashallah Sayyid Hassan we're not talking about exams wala this is just for students learning how to speak we're not doing any books exams or anything else this is for them to learn how to speak native English let me a cup of tea let me to use your telephone why don't you see my comments marka Professor Ahmed Dordan why don't you see my comments teacher Madi because there is 500 comments also coming in okay I'll try inshallah and I could try intaan arki karo Hamda let me help you Shuaib let me explain that very good give me my phone let me help you there Abdisalam let me help you okay very good mashallah si fiican baad u taray si fiican baad u fahamtay marka inshallah kun ku soo celceliya this is how to speak like a native person like sida sheegtay Zainab qoraalka marka la qorayo official formal English this will be marked wrong qoraal haday noqoto kan waa qalad laakiin hadal markay noqoto waa hadalka ku dhawaaqa native ka lahjada dadka inta badan isticmaalaan marka insha Allah ardayda ka faa'iideysta jumladahana soo qora ku soo celceliya 10 intaad la qabsanaysaan ama ku dhawaaqaysa haddii aad u baahataan jumladaha soo qora anaguna waxaan diga akhrin karnaa insha Allah waan diga akhrin doonaa diga saxi doonaa aad baad u maasantiin جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته